قريش سورة قريش أيان هدنا إن شاء الله قرينا ونكهد لدونا سورة قريش وحوي ومكية بالليل آيات كذونا وعفر آيات وحي كهدشا سورة داني عن نعم الله الجليلة عن على أهل مكة نعموينك واوين رير مكة إلهي أقلي حيث كانت لهم رحلتان لبس سفر بيجيلي ترين رحلة في الشتاء إلى اليمن مرنا وحي أسفر ترين ودنا كيمن ووقتك حقيقة ورحلة في الصيف إلى الشام وقتك تيدال كان وحي أسفر ترين وحوي وقتك أو تيدال كي سمر كي يقول إلا ذا وقت يدا أنا وحي أسفر ترين ودنا كليلة الشام تجاري يقول بحترين وقد أكرم الله تعالى قريشا بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة إلهي لمن نعمة واوين أو نعمين كإلهي واوين كمده أو أقل قريش هما نعمة الأمن والاستقرار نبت قليلة إيا السقنانتا واللوغو نعمي ونعمة الغنى واليسار خضنك النمضة إيا التناد نمضنا واللوغو نعمي نعموين كاس فرحة بضان أيا قلوين كان لوغلي وانا تنقصدو دي سفر كاس مركا أي وحوي سفر تيران قلدان ليرا قريشتا ليرا هدو سفر كاي سفر تيران نينكي يقوه الرئيو باللاوي وحال ليرا هدا هاشم ابن عبد مناف أيا ليرا هدا والنبي أقوغي عليه الصلاة والسلام وحال ليرا ربح أي كسو هلان لبضان ودن سفر كمركا او آدان ganacsiga iyo tijaarooyinku ribaxa ka soo baxa waxay u qaybi jireen ruuxa qaniga ah iyo ruuxa faqiirka ah aqayso jiray baa leeyahay waa qolo iyaga dham isku xiranoo dhaqaalihii wadanka soo gala wala maamulaya markaas masaakiinta dhamaan la gacan qabanaya illa ruuxa faqiirka ah hatta kana faqiiruhum ka qaniyihim baa leeyahay ruuxa faqiirka ah ruuxa qaniga ah la sanaa jiray faqiir bal lagu ma arka marka haddana waxaa laga yaabaa ruuxna inuu xoolihii muslimiintii ninna meelu kala geeyo la'yahay ninna waxa weeye baahi baa meel ku dilaysa walaalayaal caalamka dadna baahi bay u baaba'ayaan guri bay jiiftaani waayeen biyay cabaan koob biyaha dadkii u baqtinayaan oo u leeanayaan qofna cuntadii waxa weeye dharkii soo maalinba qayb u xiranayay oo wuxuu leeyahay qashinka meesha ah iiga dardharkan iyo cuntadii baa la soo daadinaya marka waxa weeye waa musiibo waa la isweydiinaya yoomul qiyaama la isweydiinaya nicmadan waa in ilaahay laga baqa oo aad isxakamayda oo dharka waxa weeye markii mid aad maanta hesho midka kale waa la sadaqaystaa sidaas oo kale ayaa loo baahan yahay inaad wixii ku aad ku israaf ku sameeydo ilaahay nicmadiisa ma ahan waa in ilaahay uga shukrina nicmada uu noo galay saasi xoolahooda u qaybsan jireen waxaa haashim arrintaas ku raacay walaalihiisoo dhan haashim bin cabdimunaaf walaalihiisa ku raacay oo ayaguna sidoo kaleeto waxa weeye samay jiray baa leeyahay sida cabdushamsi oo kaleeto iyo mudalib oo kaleeto iyo waxa weeye nawfal iyo walaalihiis weeye cabdushamsi nawfal mudalib haashim kulligood waa walaalo marka waxa weeye way ku raaceen fikradiisii bay ku raaceen oo safarka wadankan iyo xoolaha la qaybsanayo iyo masaakiinta loo kaalmaynayo dhaqankiiba isku raayaga dham ku iskaga daydeen haashim wuxuu u safri jiray wadanka shaam cabdushamsina wuxuu u safri jiray wadanka la yiraahdo xabashta mudalibna wuxuu u safri jiray wadanka yamanta nawfalna wuxuu u safri jiray wadanka faris tijaarada qurayshna wadamadaas afartaas wadan oo waxa weeye xagga la yiraahdo wadanka shaam wadanka xabashta wadanka yaman iyo wadanka faris afartaas wadan ayaa ganacsigoodu ka imaan jiray qoladan la yiraahdo reer quraysheed oo dhaqaaluhu ka soo gali jiray ay u bixi jireen nimankan hadda aan soo sheegno afarta ah wadan kasta ballan bay la yeesheen wadanka furus wadanka xabashta wadanka shaam wadanka kaleeto oo waxa wadamadaas oo dhan ballan bay la wada yeesheen wadanka yaman ballan bay la wada yeesheen go'aan bay macnaha saxiix waxay gacan saar bay la wada yeesheen safaradooda u baxa safarkooda lama taabto xoola dhaqaalaha ka soo gala ayagu waxbay geeyaan waxna way ka soo qaadaan
dhaqaalihii yimaadana dadka oo dhan ruuxooda faqiirka iyo kulli way qaybsanayaan baa layidhi sidaas bay ahaan jireen ilaahay baa nicmooyinkaasoo dhan u galay nabadgelyaa la siiyey nabadgelyada la siiye waxaa ka mid ah sida suuratulfiil noo imaan doonta markii ilaahay u barwaaqeeyey reer quraysheed markii ilaahay u barwaaqeeyey oo kacbadii ay ku soo weerareen waxa weeye ee ninkii abraha ahaa iyo gaaladii la socotay iyo maroodiyaalkii wateen waa la baabashay gaaladii iyo maroodiyaalkoodii masaa'ib baa ku dhacdo shimbiraa lagu soo diray markaasaa la yidhi nimankan xaramka agtiisa degan yaan laysku taaban baa la yidhi hum sukaanu xaramillaah yaan laku taabanin waa nimanka xaramka ilaahay degan baa la yidhi waa niman cajiiba haaulaa'i jiiraanu baytillaah waa guriga ilaahay kuwa waxaa deris la'a baa la yidhi wa sukaanu xaramillaah xaramka ilaahay kuwa degan weeye wahum ahlullaahi waaye baa yaan laysku taabanin kacbada ilaahay bay maamulayaan yaan la dhibin yaan la dulminin markii asxaabulfiil la halaajiyey ummaddii oo dhan waxaa la yidhi quraysh waa ka hibaysteen ilaahay baa nicmadaas u galay waddamada kaleetoo dhan dagaallabaa ka dhacaya laakiin meesha iyagu ay degan yihiin dagaalkii hal qolaas isku soo biimay oo dhehen kacbadan baabi'inaynaa suuratulfiil bay noogu imaan doontaa qisadoodu insha allah waa la baabi'ey nimankaa marka aamin bay saas ku ahaa jireen qurayshta la yidhaahdo waddankooday nabad ku deganaayeen ganacsigoodu 4 waddan ayuu kala aadi jiray dhaqaalo aad u fara badan baa soo geli jiray way nicmaysnaayeen ilaahay nicmadiisa ay heleen waxaa la rabay inay ka shukri celiyaan ilaahay haddaad u shukriso markuu kuu barwaaqeeyo ood nicmadiisa uga shukriso ood caafimaadka uga shukriso ood cilmiga uga shukriso ood awlaadda uga shukriso oo hurdada uga shukriso ood waxa weeye hoyga wanaagsan uga shukriso ilaahay waa kuu kordhinaya waa kuu sii badinhayaa ilaahay nicmadiisa oo jirkooda waxa weye ku shumaysiyo korkooda inay uga shukriyaan baa la rabay oo ilaahay ay adeecaan sidaas bay ahaa jireen ilaahay baa u barwaaqeeyey beledkooda ay deganaayeen ilaahay wuxuu ka dhigay beled aamin ah oo adduunka midhaha yaallo oo dhan meel walba midhaha yaalla maka ayay iskugu imaanayaan adduunka oo dhan awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi samaraatu kulli shayin buu ilaahay yidhi adduunka midhaha yaalloo dhan xaram oo midhaha adduunka yaalla la keenaayo kulligood waxaa la yidhi haddaad maka u baahato adduunka waxa midha ka baxa inaad ka hesho ilaahay baa waxa way ku galladaystay way dhex yaalleen waa la keenayaa meel walbaa laga keenaya ilaahay baa dhex dejiyey awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhadafu nnaasu min xawlihim xaramka ay degan yihiin ilaahay wuxuu ka yeelay aamin qofka degan far lama saari karo geedaha lama taaba karo baadidiisa lama qaadi karo ugaartiisa lama taaban karo nabaadkiisa lama goy karo rasuulku sidaasuu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista saxiixulbukhaari ku cad dagaal laguma dhex samay karo gaalka looma oggolaan karo beydka ilaahay kacbadii ilaahay oo adduunka muslimiinta joogto oo dhan ay xaggeeda u soo wada tukan hayeen ayaa ku dhex taalla maka almukarama beydka ilaahay oo kacbada ah korkeeda waxaa ku aadan buu xadiiska saxiixulbukhaarigu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ku aadan bayd la yidhaha baytulmacmuur oo 7 sama ka sii korreeya oo malaa'igtu ay ku tukadaan adduunka oo dhan buu ka sii horreeyey maalin walba waxaa ku tukada maalin walba beydkaas waxaa ku tukada 70,000 oo malag qoladii ugu horrayday oo ku tukatay oo safka koobaadaheedna markay ka baxaan kuwo kalaa soo gelaya qoladii koobaad ayadoon wareeggu weli soo gaadhin oo saf cusubo hadba uu gelaya salaadii ayayna qiyaamadu dhacee buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam tirabadi intay ka qabaan malaa'igta ku tukanaya kacbaduu ku aadan yihi intaas oo nicmo beydkaas wanaagga badan nabadgelyadaas barwaaqadaas ayuu ilaahay quraysh dejiyey
markaasuu ilaahay ugu manno sheegan haya nicmadii ilaahay u galay alloogu manno sheegan haya war intaasoo nicmo oo ilaahay idiin galaye ilaahay ma caabudaan qurayshta ilaahay may rumeeyaan rasuulkiisa ma raacaan calayhi salaatu wasalaam suuraddan baa looga hadlaa suuratu qurayshaa la yidhaah kitaabka la yidhaha adkaarka waxaa ku qoran oo imaamu nawowi safarka marka loo baxo suuraddan qofka akhrista oo safarka markuu aado suuraddan akhrisan haya qofka markuu safarka aado suuraddan akhrisan haya oo akhrista waxaa la yidhi masaa'ibta iyo sharta safarka wuu ka nabad galaa isagoo aamina ayuu soo laabtaa haddaba suuratu quraysh sidaas ayaa looga hadlaa bismi illaahi araxmaani araxiim liiilaafi qurayshin quraysh barashadooda iilaafihim ka caada dhigadkooda ay ka caado dhigteen rixlata ashitaa'i xagayga safarkiis iyo washitaa'i waxaan rabaa wasayfi jiidaalka safarkiis falyacbuduu ha caabudeen nimankaani rabba haada albeyt kacbadaas rabbigii iska lahay ha caabudeen alladii rabbigaasoo adcamahum quudiyey min juucin gaajo xaggeed gaajadu waa cadow bi'sa dajiic weeyi habeenkii hadday ku qabato mahurdi ka dhig waa waxyaabaha waxay ka mid tahay ilaahay laga magan galo juuca iyo jahannamada iyo waxa weeye jinni iyo juudaam intaba ilaahay baa laga magan galaa maalin walba haddaad qur-aanka ilaahay akhrisatana jahannamo ilaahay baa kaa badbaadin haya juuca ilaahay baa kaa badbaadin haya jinni ilaahay baa kaa badbaadin haya jahannamo ilaahay baa kaa badbaadin haya dadka waxyaabaha ay u hallaabaan ooy u gaaloobaan oy u munaafiqoobaan oo mubtadacada u raacaan oo diintooda ay uga tagaan waxaa ugu badan ruuxa markii laba shay waxaa la yidhi ou isku darsado wuxuu u badan yahay diintiisa inuu ka tagaa la yidhi haddii ruuxa waxa weeye jahli iyo jiidaal hadday iskugu darsamaan diintiisa ayuu ka tegayaa baahi baa hayda waa baahan yahay qof baa adduunye u sheegaya diintiisii oo dhan buu nacayaa soomaali baa hadda waxa weeye badan ayaa diintoodii ka tageen rasuulkii calayhi salaatu wasalaam inkireen oo debadahan jooga oo salaadii ka tageen oo maanta waxa weeye khamro iyo xaaraam iyo dunuub maahane rasuulba aan qirsanayn calayhi salaatu wasalaam maxay diintoodii uga tageen gaaja ay macnaha aqabatay jaahiliinna way ahaayeen jahli iyo waxaa iskugu darsamay iyo juuc labadaas jiin baa la yidhi qofkii u dhaxeeya wuxuu u badan yahay inuu shaydaanku duufsadaa la yidhi labadaas jiin dhexdooda allaha naga badbaadiyo hadday juuc iyo jahli iyo jiidaal iskugu kaa darsamaan jahannamana way kuu dambaydaa diintaada inaad ka tagtad khatar ku noqonaysaa ilaahay naga badbaadiyo ilaahay baa reer quraysheed u nicmeeyey waxaa lagu yidhi falyacbuduu ha caabudeen rabba haada albeyt kacbadan ilaahay iska lahaay ha caabudeen alladii ilaahaasu adcamahum quudiyey min juucin gaajadii xaggeeda ilaaha ka quudiyey ama quudiyey gaajada ay qabeen waxa weeye ilaahay ka bixiyey wa aamanahum nabadgeliyey min khawfin cabsidii dagaaladii walwalkii walbahaaradii ummadda kala qabsanaysay ayaga waa laga badbaadiyey bismi illaahi araxmaani araxiim icjabuu la yaaba liilaafi qurayshin quraysh caada dhigadkooda ay ka caado dhigteen safarka ay u baxayaan waddanka waxa weeye ee yaman iyo waddanka shaam bal nimankaas say waddamada ugu safrahayaan oo ay tijaarada ula aadahayaan oo ay dacaamka iyo dharka iyo alaabta iyo u keenahayaan ayagoo aamin ah oo jidka markay marayaan qof u soo bixi kara aysan jirin oo qofkii arkaaba uu leeyahay haaulaa'i jiiraanu baytillaah waa kuwii kacbada ilaahay deganay qowmu fiil asxaabu fiil wixii ku dhacayay nagu dhicina naga dhaafa ayaa la leeyahaa la yidhi bal nimankaas sida ilaahay ugu barwaaqaya arka liilaafi qurayshin quraysh caada dhigadkooda ama dee barashadooda ay barteen oo ka caado dhigteen inay safraan bay ka caado dhigteen
وأرن عجيبة أرن تاس تعجب ليابا لإيلافهم برشدوا إيا عادة لقد كود الليابا رحلة الشتاء حقيقة سفرك أي سفريان أما حقيقة رشديس أي سفر كيس أي كعادة لكتين إيا والصيف تيدالك فليعبدوها عابدين رب هذا البيت كعبدا عن ربك إسكالهاي الله العظيم الجليل ربك كعبدا إسكالهاي عابدين الذي ربك عصو أضعمهم قوذيي من جوع قاتشو حقيت كقوذيي وآمنهم نبدقليي من خوف عبسدي حقيت كنبدقليي عبسدي إيا والولكي إيا والبهاركي وحوي إلهي كقوذي فليعبدوه إلهي عابدين من أجل إلافهم الرحلتين هذا النعمة وين بالله وحكى لها ديس إلهي عابدين وإلهي اسكو حصوصنين بل نعموين كان الله قلي وأي كمتها اللبضا ودن ودقارها إيو وحوي أي كسو قليان إكونومية فربضا إيا الدخل آد فرها بضا إلهي هو الشكريان سبحانه وتعالى هو الشكريان هكو أقونصدين هكو عابدين أمنك أي هايستان أيو أمني مكان سكران قاتشدا اسكما بحين كران ماشي دونان أيو اسكما توسين كران إلهي با انتا صون نعماء أقلي إلهي با كقل لضيستي إلهي النعمدي سهك شكريانو إلهي عابدين سبحانه وتعالى سلاس أيا اللغيري نمنكا أيقا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل مكية وآياتها 5 سورة وحا ليلة سورة الفيل بالليل هذا تتحدث عن قصة أصحاب الفيل وحيك هذا الشاه أصحاب الفيل قولد الليل هذا حين قصدوا هدم الكعبة المشرفة مركي قوان صدين كعبة إني الدميان فرد الله كيدهم في نحورهم وحمي بيتهم من تسلطهم وطغيانهم وأرسل على جيش أبرهة الأشرم وجنوده أضعف مخلوقاته إلهي وحكو صدري مخلوقا كوى أغطبر يراي وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة شمبراء أي إلهي كصدري ولكنها أشد فتكا وتدميرا من الرصاصات القاتلة مدافع الدونك أغقر حوين شمبرها صدقح أي وطانه وكقرح بدنيه حتى أهلكهم وأبادهم عن آخرهم كي أقدم بي كل إله وبابش وكان ذلك الحدث التاريخي الهام في عام ميلاد سيد الكائنات محمد ابن عبد الله سنة 700 ميلادية وكان من أعظم الإرهاسات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم سورة مقعدة وحا ليرهده سورة الفيل با ليرهده سورة الفيل ومرودقة سورة ديسي مرودقة قصة حيلادها عجيبة او تاريخ دا إسلامك أدلوغة هدلو سنة كاس سنة عام الفيل ليرهده وسنة كده لشد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ليال وقتي عن درسك أخرج شرني أو صور ماضي أوديس أما عن وقتي لسوقاري اللي تشوتي شري أوديس أيان 10 كان إن شاء الله عاو أنت نسكيسو كوبينا إلهي هنقو أنفعو إلهي ننفهم سيو كو إلهي النعمدي سكا شكريانا إلهي هنقو درو علمك أنا إلهي يفهم دا يفير دا إلهي هنوفرو علمك كوي كو أداب قاطة أو كو عمل فلا oo qiyaamada oo u shafeecana ilaahay hanagu daro allahumma arzuqna mazidna ilman warzuqna fahman ilaahu ilmiga noo siyaadi fahmadana noofur allahumma la tufadhihna ala dhahir al-ardi wa la tu'adhibna fi babinaha ilaahu dhulka hoostiisa hanagu cadaabin korkiisana ilaahu hanagu ceebaynin intaas ayaan 10 keena ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.